Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan. Dib ayaan iskugu soo laabanay in dhawaale laysma arag intii 2 bilood waynu ka maqnayn. Waxa weeye inaan casharada soo gelino YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga page-ka aan ku leenahay inaan soo gelino mashquul jiro awgiis ayaan sidaas uga maqnayn. Waxaynu bilaabi doonaa introduction. Waxaynu ku qaadan doonaa insha Allah oo aynu ka samayn doonaa casharo gaaraya 70 cashare gaaraya insha Allah ayaynu ka samayn doonaa. Waxaan si toos u soo gelin doonaa ilaa idinkiis YouTube-ka Ifiya Online iyo sidoo kale page-ka aan ku leenahay Facebook-ga Ifiya Online ayaa si toos ah kala socon doontaan. Waxayna soo geli doonaan insha Allah habeen kastoo Jimco ah 5 saac marka ay saacadu tahay ayaan si toos u soo gelin doonaa. Waayahay idinkana insha Allah waxaan idinka rajeynayaa inaad saaxiibadiin la sii wadaagtaan share like intaba aad raacisaan ilaa idinkiis comment-gana aad ku dadhaan. Waayahay intaba inaan ka dhex arko ayaan insha Allah idinka rajeynayaa. Waayahay in ku socono marka waaye casharkeena waxaynu arki doonaa waxay tahay introduction ayaynu arki doonaa. Waayahay waxaynu ku qaadan doonaa casharo aad iyo aad u muhiima. Waxaynu qaadan doonaa waxay tahay introduction wax su'aal baa lana weydiiyey waxaa la yiri waa maxay intaan u guda gelin waxa ay tahay waxaan rabnaa bal sida loogu dhawaaqayo inaynu fiirino. Is pronounced ahaan waxaa loogu dhawaaqaa ayaa loogu dhawaaqaa. Dadku magacyo kala duwan ayay ugu yeeraan qaar laba arkaysaa. Marka magaca saxda ee loogu dhawaaqa ayaa wuxuu yahay magaca halka inoogu qoran. Luqadan waxa weeyaan waa Object Oriented Programming Language. Waxaa create gareysay oo sameysay shirkadda loo yaqaan Microsoft taasoo ku ran gareysay .NET Framework. Luqado waxaa jira aad ugu dhowdahay luqadaha aad ugu dhow waxaa ka mid ah luqada aad iyo aad u caana waxaa ka mid ah luqadahaas C++ iyo Java labada luqadood ayay aad ugu dhowdahay. First version-keedii ugu horreeyay waxaa la soo daayay sanadku markuu ahaa 2002. Version-kii ugu dambeeyayna waxaa la soo daayay 2019. Waxay kasoo bilaabatay version 1, version 2 ilaa midka ugu dambeeya oo hadda aan isticmaalano oo ah version 8 waxay soo martay heerar kala duwan ayay soo martay luqadan. Halkan waxaa weeyaan waxaa la leeyahay maxaa loo isticmaalaa oo loogu talagalay in loo isticmaalo. Waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah mobile applications in lagu dhiso lagu create gareeyo. Sidoo kale desktop applications, web applications, web service iyo websites, games iyo database applications iyo intaas in kasii badan ayaa luqadan loo isticmaalaa.